faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dil qorshaysan oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir kaas oo loo geystay laba qof oo isku qoys ahaa sida aan xogta ku helnay. dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu xalay ka dhacay xaafadda Suuqliif waxaa loo geystay Xuseen Cabaas iyo Cabdi Cismaan Cali oo ka mid ah dadka deegaanka. wararka ayaa sheegay in rag ku hubeysan bistoolada ay toogasho ku dileen marxuumiinta oo hal goob wada fadhiyay kadibna ay goobta isaga baxsadeen markii dilka geystay. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in labada qof ee la dilay ay ahaayeen wiil iyo adeerkiis sida ay xaqiijiyeen ilwareedyo lagu kalsoon yahay. ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobta gaaray kuwaas oo meedadka soo qaaday halkaasi kadibna geeyay CID si baaris loogu sameeyo. sidoo kale waxaan ogaanay in marxuumiinta la dilay ay shaqadooda ahayd iibinta dhulka mana cadda sababta rasmiga ah ee loo dilay. sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Dharkiinle oo ku aadanaa dhacdadaasi xalay ka dhacday xaafadda Suuqliif ee ka tirsan degmadaasi. dilkan ayaa qayb ka noqday falalka amni darrada ah oo ku soo badanaya maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimadda gudaha Soomaaliya.